السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ومعنى هذا يهي والله يحكم إلهي وحو رب حكمه لا معقب لحكمه، حكم كيس wax ka dabatay kara male oo diidi kara oo celin kara oo iska difaaci kara male. وهو سريع الحساب، حسابتنا wuu dejiyaa. waxa weeye marka maanta Soomaaliyeey waa Cabdirashiid Cali Sheekh Maxamed. waxaan rabaa inaan ka hadlo Suuriya arinta ka soo cusboonaatay oo Mareykanka iyo xulafadiisa iyo Ruushka iyo xulafadiisu dagaalkii saddexaad bilowgiisa inuu halka ka bilowdo ayay qarka u saaran tahay hadaan Ilaahay uusan joojinin. arintaas waxaan rabaa inaan ka hadlo halkaas qodob. marka waxa weeye caawa waa military analysis way. waxaad arki jirteen anoo Quraan akhriyo, waxaad arki jirteen anoo qabiilooyin Soomaaliya idin akhriya. caawa waa military analysis way. marka hadaad military wax ka taqaanid iska dhageyso, hadaad shacab tahayna iska dhageyso. waxaan isku dayayaa shacabkiina iyo military-gaba waxaad fahmi kartaan inaad iin sheego intaan ku ogahay arrintan sidaan qiyaasahay yani qiyaasteed. dhowr qodob baan u kala saarahayaa. marka ugu horeysa waxaa weeye maxaa kalifahaya saacadan inay diriraan xulufada reer galbeedka oo Mareykan hogaaminayo iyo xulufada reer bariga oo Ruushka hogaaminayo. si marka arrinta u faahano waxa weeye sida anigu waxay ugu muuqdaan laba qodob baa ugu muhiimsan oo arrinta kalifaya. kow waxa weeye waa arrin dhaqaale ku saabsan oo oil and gas. waayahan dambe tartankii adduunku dhaqaalo noqday aan laga dhaqaalo badnaan. waa qodobka koowaad. qodobka lagu diriraya waxa weeye waa powerka adduunka la isku haystaa oo hadda Mareykanku wuxuu asagu sheegtaa ilaa 90kii ama 91kii markii Soviyetkii la burburiyay inuu asagu adduunka super power ka yahay oo adduunka asagu leed garayo hago oo oday ka yahay waayela. marka Ruushka iyo Chinese-kiina waa diidan yihiin. Ingiriis iyo Faransiis oo asaga raacsanna waa diidan yihiin oo waxay leeyihiin wali anaga carrada hogaaminayna. marka saasa la isku haystaa waa dhaqaale oo qodobka koowaad iyo qodobka labaad oo powerka adduunka ah. waxa weeye marka arrinta haday saas tahay maxaa waqtigan hadda maxaa inuu dagaalku bilowdo oo 14kii maanta ahaa inay duqeeyaan Mareykanku Suuriya maxaa kalifay. waxaan ognahay berito jaamacadda carabta waxay ku kulmaysaa Sacuudiga damaam maanta 14 waxaa bilowday duqeyntii maxaan ku raahdaa Suuriya. waxaa ka horeeyay madaxweynaha Ruushka iyo kan Turkiga iyo kan Iran oo ku kulmay wadanka Turkiga. waxaa ka sii horeeyay Salisbury Nef Agency oo wiil oday iyo gabadhiis in Ruushku macnaha ay sumeeyeen oo kimika ay ku fureen Ingiriis ku haystay. siyaasiyiin badan oo Ingiriiska laga ceyriyay Ruushka laga ceyriyay Ingiriiska wadanka UK. Ruushkuna soo ceyriyay wixii xag ka joogay ma taqaanaa siyaasiyiin Ingiriiska. Mareykanna saas oo kale inuu asna sameeyay uu soo ceyriyay. Ruushkuna wixii Mareykan ahaa uu ceyriyay. reer galbeedka oo dhan ma taqaanaa in qolo badan ay ka qaateen u soo celiyeen Ruushka ma taqaan soo ceyriyeen siyaasiyiintoodii. waxaa ka sii horeysay February sanadkii aan ma taqaan hadeertaan in dhowr jeer ay duqeeyeen Mareykanku ciidamo Ruushku leeyahay oo Suuriya jooga iyo dad shaqaalaha oo ilaa 200 ka badan 250 ay ka dileen oo Ruushku iska aamusay sida la sheegayo. waxaa ka soo horeysay
inqilaabkii ka dhacay mataqaan turkiga oo ruushku badbaadiyey oo sida turkigu sheegaya reer galbeedkan iyo gulaan oo jooga maraykan oo maraykan isticmaalayaan mataqaan ka dambeysay ku aadanayaan ayagu sheeganaya hadday turki yihiin ruushku arrinta ka badbaadiyey waxaa kasii horreysay diyaarad ruushku leedahay oo ay soo riday turkigu oo turkiga ruushka oo markaa turkigu uu reer neto ciidamadiisa ka tirsanaa xoogaa arrintooda ku xumaatay arrintii oo weli xun in inqilaabkan u dhacay turkiga deedna ruushka uu meeshii soo galay turki badbaadiyey turkigina uu u wareegay si toosa uu ugu galay ruushkii oo reer galbeedkii net ka wareegay waxaa kasii horreysay ukraine oo ruushkii intii badna laga qabsaday oo hadda wax yar uu ka haysto waxaa kasii horreysay isaga oo 2011 reer galbeedku markay damceen asad in ridaan asagoo meesha tegay oo difaacay waxaa kusii dartaa cunaqabatayntii ayagu ay saareen ku dar ayadana oo ruushka la cunaqabateeyey arrimaha Ukraine iyo Syria awgood marka silsiladu saasay isugu xiran tahay ilaa dagaalkii labaad ku xir hadaa rabtid waa arrin soo socotay way marka waxaan hadda galeynaa sida liskula jira marka oo haddii dagaal bilowdo sidee Amerikaanka imisa raacaya iyo xulafadiisa ruushkana imisa raacaysa haway marka horta nimankan la dhaho Amerikaanka waxaan ka bilaabaynaa taariikhda dagaalkii labaad waxaa guuleystay America Russia UK oo Ingiriiska ah Great Britain France afartaas guuleystay waxaa laga guuleystay Jarmalka oo xulafadaas hogaaminayay Japan oo ku xigtay iyo Talyaaniga hadda marka arrintu waa isbedeshay hadda waxaa maraynaa 2018 waagaasna waxaa la joogay dagaalka wuxuu bilowday 39kii 1939kii 4 santina waa dhamaaday hadda xulafadu waxaa weeye Jarmalkii iyo Japan iyo Talyaanigu waxay raacayaan Amerikaanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska bay raacayaan halka marka 6 bay noqonayaan wali saddex dagaalkii hore mutaqaana isla safnad oo laga adkaaday iyo saddex dagaalkii hore adkaatay iyo ruushkii oo afartii adkaatay hadda kaligiis ah oo gooni u taagan ruushka asaga yaa xulafa marka la ah ruushka hadda waxa xulafa la ah xulafada ugu horeysa waxa weeye nimanka la yiraahdo Turkiga iyo Iran waxaad ku dartaa Chinese-ka oo haddii xabadu ay bilaabato soo galaya oo xataa inuu ka hormaro Iran iyo Turkiga suurtagal ay tahay oo quwadda ugu weyn ama dhaqaale ama military oo ku xisaabtamaya ninka la yiraahdo Putin haddii Chinese-ku marka uu ku soo biiro dhinacan ruushka waxaa la noqonayaa markaas afar ruushka oo wayelkii meesha ah China oo quwadda ku xigtaa Turkiga oo quwadda ku xigtaa Iran oo quwadda ku xigtaa afraad afarta marka marayso waxaan qiyaasayaa inay soo galayso Pakistan iyo Indonesia inay raacayaan dhankan Turkiga inay raacayaan iyo ruushka iyo Iran inay raacayaan waxay marka Hindiya iyo marka waxaa soo haray quudihii waaweynaa ama xagga dhaqaalaha ama tirada waxaa soo haray Hindiya iyo Brazil Hindiya waxaa malaynayaa way ishaafalataynaysaa waxay sugaysaa labada qolo ayada interestkeedu mid ku raaca bay sugaysaa muddo sanad 6 bilood 8 bilood dagaalka inay ka hartaa laga yaabo iska daawato oo xaaladdu qiimeyso
meesha ay istiraado marka adiga dan baa kugu jirta inay markaa raacdo. marka maxaan haynaa ruushka iyo China iyo Turkiga iyo Iran, Pakistan, Indonesia, intaa waxa weeye waa 6 wadan wey. qoladaasna maxay ahaayeen ayuu 6 iyo 6 baan haynaa marka waa balance marka waa isleegiya marka waxaad u wareegtaa marka quwadda ku xigta waxay noqonaysaa labada Korea. North Korea asaga wuxuu la jiraa nimankan dhaho Chinese-ka xagga ku dar iyo Ruushku raacaya waa 7. South Korea-na waxay raacaysaa America 7 la noqdo marka soo ma wali waa la sameeyay marka waa balance tirada. Hindiya oo fiirsanaysa oo xagga dhaqaalaha iyo ciidanka iyo juqraafiga iyo siyaasadaba meel weyn ayadoo ka ciyaar karta adduunka. nimankaasaan waxaan ka dhignay inay weli ay xaaladda aysan qolo toos u raacin ay sugayaan. intii kalena maxaan ka dhignay 7 iyo 7 baan hadda marayna. waxaa soo raaci kara markaas oo la dhihi kara ayaguna waa quwad kale may America, Britain, France, Germany, Italy, Japan, Brazil, South Korea waa 8 wadan. dhinacana waxa weeye Russia, China, Turkey, Iran, Pakistan, Indonesia waa 6 wadan. waxaa ku dartaa kuwa 8 laba dhimo marka waxaa ku dartaa marka Serbia oo ay niman aad u xoog badan ah balas Soviyetka hore dhan oo 22 wadan ahaa xoog bay ku qabsanaysaa macal East Europe raaci way qabsanaysaa Ruushku uu qabsanaya xoog buu ku qabsanaya. dhinacaas ayagana waxaan ka dhigaynaa Yugoslavia hore baa soo celinaa hal baan ka dhigaynaa 7 ay noqonaysaa. inta kale East Europe hal block baan ka dhigaynaa oo Soviyetka hore 8 baan ka dhigaynaa marka waa 8 iyo 8 marka balance aan ka dhigaynaa. waxaa marka wali labadii dhinacna raacin nimanka la dhaho Hindiya. inta waa qaabka marka waxaan haysanaa marka 8 iyo 8 wax hadda bini aadanka wixii noo soo haray waxay noqonayaan Eeshiyaankan yar yarka oo sida Carabaha iyo Afrikaankii country wadan oo Afrikaanka marka kuwaas iyaga ma taqaanaa hadhow qolaba ma taqaan waxay ku xiran tahay istiraatiijiyada dagaalka markaan u gudubno meesha lagu dagaalamayo qolo degan qolo markaa haysta isticmaalaysa ayaga. waxa weeye marka dagaalka waxaan ku miisaameynaa inta hadda waxa weeye dagaalka sida la isaga soo horjeedo iyo labada qodob oo ah maxaa loo dagaalamayaa oo la isku haystaa. oo ku soo socdaa ma ujeedadan u hadlay maanta u kaleftay waxa weeye inaan Soomaaliya dagaalkaas meesha ka gali doonto inaan sheego waa qodobka inba meesha u inba marka waa soo gaari doonaa insha Allah. waa maasantiin attentionkiinu meesha inaan soo socono waa muuqataan iyo adinka. waxa marka labadii ujeedo lagu diray oo ahayd dhaqaalaha iyo powerka adduunka waxay noqonaysaa hadda now yaa dhaqaalaha ku xoog badan adduunka oo hogaaminaya yaasa powerka siyaasadda adduunka hogaamiya. hadda waxaan tiradii waxaan keenay 8 iyo 8 waa tiradii wadamada si u kala yihiin. waxa weeye nimankan Mareykan iyo Ingiriis dhinacooda raacsan dhaqaalaha adduunka hadda iyaga xukuma. Ruushka iyo Chinese-ka gurubka hogaaminayaan waa laga dhaqaale badan oo dhaqaalaha waa looga sareeyaa. su-aasha macna isweydiin mal waa arrin cad wey sida qoraxda u cadda. waxaan tegaynaa marka siyaasadda
ma siyaasadii hore oo dagaalkii labaad soo bilaabatay ilaa maanta aan hadlayno ma siyaasadda maanta ka bilaabanaysa wixii ka dambeeya maanta wixii ka horreeyey waxaan dhihi karnaa waxaa hogaaminayey maraykanka iyo ingiriiska iyo xulafadooda laakiin hadda iyo haddii dagaal dhaco wixii ka dambeeya siyaasadda waxay u wareegaysaa oo hogaamin doona ruushka iyo xulafadiisa waxaan ku sababeynayaa sababka waxaa weeye nimankan ilaa dagaalkii labaad adduunka xukumeen dad badan oo mataqaanaa cadow hay samaysteen oo kasoo horjeeda maraykan iyo ingiriiska laakiin ruush iyo china dagaalkii labaad baa ugu dambeysay ummadahan kaleo adduunka iyo ayagu inay diraan laakiin dagaalkii labaad markuu dhammaaday konton saddexdii laga bilaabo ilaa haddeertaan ruushka iyo china isla jira iyo maraykan iyo ingiriiska isla jira iyo faransiis meelo badan baa lagu diray korea lagu diriray oo north korea south korea loo kala qaybsaday oo ruushka iyo mataqaanaa ay qaateen china north qaateen south koreana waxaa qaatay mataqaanaa maraykan iyo ingiriis iyo faransiis baa qaatay vietnam baa lagu diriray oo kala qaybsanayd markii dambe qoladana looga adkaaday maraykan ingiriis baa looga adkaaday faransiis waxaa qaatay gebigeedi vietnam oo dhan la wareegay ruush iyo mataqaan china waxa weeye marka dhaqaalihii iyo siyaasaddii hadda maraykan ingiriis baa haysta laakiin haddii xabad bilaabato oo aniga aan isleeyahay qiyaasayda 75 xabaddan boqolkiiba bilaabanaysa 75 boqolkiiba xabaddan suuriya ka bilaabatay way bilaabanaysaa boqolkiiba 25 inaysan bilaaban baa dhici karta alcilmu cinda allah waa qiyaasayda laakiin ilaahay baa yaqaan say noqon doonto laakiin saan wax ku qiyaasaya wey anoo taariikhii hore dhan dabagelahaya xaalku meeshuu taagan yahay ka qiyaas qaadanhaya ninkan putin iyo mataqaan isku miisaamahaya iyo mataqaan madaxweynaha china shin bin iyo Theresa May iyo ninkii la yiraahdo mataqaana ninkan la dhaho Donald Trump iyo wararka saxaafada la isku marinayo waxa weeye dagaalkan inuu 75 boqolkiiba dhacayo baa aniga ii muuqda 25na inuu soo dhici doonin laakiin ilaahay baa yaa yaqaana adduunkan asagaa samaysay hadduu dagaalka ilaahay uu amrana oo ogoladana wuu socon haddii ilahay joojiyana waa joogsan waxa weeye marka dhaqaalihii waan sheegnay waxaa hogaaminaya maraykan iyo ingiriis iyo faransiis groupkaas siyaasaddiina ayagaa hogaaminaya laakiin haddii dagaal noqoto adduunku 223 waddan oo adduunka intooda badan ugu yaraan 100 ama 120 150 iska dheh waxay u wareegayaan oo raacayaan dhinacan ruushka iyo Chinese marka waxaan ka dhigaynaa siyaasadda iyo waxaan balance ka dhigaynaa dhaqaalahana waxaan siinaynaa reer galbeedka reer bariga China iyo ruushkana waxaan siinaynaa siyaasadda inay hogaaminayaan maxaa ku soo haray marka military marka militarigu wuxuu ku xiran yahay science and technology marka science iyo technology-ga hadda America waxay sheeganayaan in Ingiriisku ay inay hogaaminayaan ruushkuna wuxuu sheeganayaa iyo Chinese-ku ay inay hogaaminayaan laakiin aniga qiyaastayda waxaa is leeyahay ruushka ugu sareeya oo hogaaminaya science and technology haddii mataqaana qalabkan lagu dagaalamayo oo militariga ama nuclear ha noqdo ama mataqaana ha noqdo qori xabad ka dhacdo oo ha noqdo qof qaatee ama basoolad ba ka dhiga waxa la xuubka hadii la yiraahdo waxaan is leeyahay raashkan ruush mataqaana yaa number 1 ah oo ruushka koow ah 2 maraykan ba ah 3 ingiriiska ah 4na Chinese-ka ah xagga technology-ga marka la qiyaaso way haway marka hadda waxaan haynaa technology-gii waxaan ka dhignay ruushka inuu ugu sareeyo maraykan ku xigo ingiriis ku xigo oo China ku xigo marka asagana balance aan ka dhigaynaa maadaama ruushku ugu sareeyo
maraykanna ku xigo waa 1 iyo 2 laakiin ingiriis oo raacsan maraykan ayaa 3 noqday number saddexaad galay China oo raacsan Ruushka 4 gashay marka waxaan isku celis waxaan ka dhignaa xisaabta inay isku yihiin markaas isleeg yihiin technology-gooda oo inta Ruushka ka sarreeya maraykan iyo inta ingiriis ka sarreeya China labas baan ka eegay dhankaasaan ka eegay marka balance aan ka dhigay 50-50 way marka way isleegiin technology-geena marka maxaan haynaa dhaqaale wal waxa ku horeeyay reer galbeedka reer bariguna maxay ku horeeyeen siyaasadii technology-geena waxa la noqday isku mid baa la noqday marka waxay marka noqonaysaa qolada ku adkaata siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa military-gana ku adkaanaysa oo military-ga waxaa xukuma siyaasadda iyo dhaqaalaha dhaqaalahana waxaa xukuma siyaasadda waxa weeye qolada ugu siyaasad fiicnaata uguna dhaqaalo fiicnaata ayaa military ahaan ku adkaanaysa oo dawladdii kaaga adkaata siyaasad iyo dhaqaale labas kaaga adkaata military ahaan waa kuu jabinaysaa waa garanti wey isweydiin ma laha marka hadda maxaan haynaa hal qodobna waxaa ku sarreeya dhaqaalaha waa reer galbeed hal qodobna maxaa ku sarreeya oo siyaasadda ah qoladan reer bariga ah technology-gan ismid baa ka dhigna marka waxaan tegaynaa marka hadda juquraafiyaad baan markaan u sharaxaynaa marka iyo qarinda adduunka iyo haddii xabaddu bilaabato qolo walba marinka ay soo gelayso ka soo gelayso iyo qolo walba saaxiibada ay ku leedahay meesha xabaddu ka bilaabayso oo Suuriya ah waxaan ka bilaabaynaa ilaa 73 ilaa 75 waxaa fadhiyay Suuriya ma 4 ba ma taqaana ma 6 ba ma 8 ba adiga hal filiid ama loo filiid oo ma taqaana nuclear xambaarsan oo submarines ah oo Ruushku leeyahay baa Suuriya fadhiya ninkan hadda meesha haysto oo Bashar Asad Abis odayga Asad baa soo xiray line-kaas asagii Ruushku weli saaxiib ay ahaayeen waxaa ka soo horjeeda Israa'iil oo ay weligeed saaxiib la ahayd Mareykanka oo ay gol lahayd ka haysata macnaha Suuriya marka waxa weeye meesha ugu horeysa xabadu ka bilaabanayso waa Golden Heights way badii waxaa haysta Ruushkiiba haysta nimankaana ayaguna ku dhow yihiin oo waxa weeye in alla inta carab bad leedahay oo dhan nimanka maraakiibtood waa fadhiyaan reer galbeedka waxay fadhiyaan Soomaaliya fadhiyaan Eritrea fadhiyaan sidoo kale Chinese-ka Ruushkuna waa fadhiyaan Soomaaliyana way fadhiyaan maxaan ku radaa carabahana waxaa fadhiya oo Suuriya hadda haysta ninkan liga Ruushka marka labadaba meel ay ka soo galaan infantry ahaan iyo bad ahaan iyo hawo ahaanba way haystaan oo hadda Mareykanka oo kale iyo Ingiriisku Ciraaqan ayaga haysta maxaan ku yiraahdaa meesha la yiraahdo Carabihi iyo Soomaaliyana waa joogan iyo Yemen iyo Djibouti iyo Eritrea waa la wada joogaa marka halka marayso istiraatiijiyada dagaalka hadda ama xudunta dagaalka waxa hogaaminaya Turkiga sabab Turkigu hadduu hadda raaco Ruushka oo raaco oo hadda u raacsan yahay halka waxa ka soo gaaraysa dhabar jab weyn baa ka soo gaaraya NATO ciidamada NATO oo ma taqaana Mareykanka Ingiriis hogaaminaya oo dabcan maraakiibtiisii iyo nuclear-kii Ruushku hadda waa yaalaan Turkiga waa yaalaan hadda aan hadlaya caaw waa yaalaan waxa weeye marka ciidamada infantry-ga ah oo Ruushku marka Turkiga soo galayaan Iran waa ka soo galayaan ciidamada Turkiga waxay ku jiraan gudaha ma taqaana Suuriya Iran waa ku jirtaa Amerikaanka iyo Ingiriisku waxay fadhiyaan Ciraaq
وأيضا حدود له معاك هذا ماشي اللي يراهدو سوريا إسرائيل نوافق يعني وأيضا قلنا هاد بهايست الحدود له أيضا خضر وحكويا لبيس كوين ملتري أو سعودي أهانش الله جه رأي بعد كويا الأمريكا إلا هيبقى كويا لما تقال خضر كويت عيدامود بوشوا وبيس بدن بكلين معنا إنجليز كمراكم كوبا لاس إلى 91 كي سلاشين كودي وحوي مركا أردن يدا واسيدو كله أو أردن يلا ما كلا صاروا يعني ما كان له إسرائيل واسكملوي مركا هالكاس أيقول لك هالكاس كجليان عراقنا وكجليان ciidamada hadda waa u joogaanba oo infantry ilaa 2,000 ama ka badanba waa u joogaanba oo commando Saudi iyo mataqaan hubba u yeela Mareykan leeyahay gudaha Syria ku jira oo waxay la socdaan qolada Kurdiga GBY meel dhaa kuwan mataqaan Kurdistaanka waxay marka xudunta hadda ugu muhiimsan oo dagaalka oo reer galbeedkana dhabar jibinaysa Ruushkana caawinaysa waa Turkiga way waana locationka uu ku yaalo iyo ciidamada NATO oo ahaa Turkiga qolada labaad marka laga tago America asaga ku xiga tira ahaan waa 90 milyan ilaa 100 milyan ku dhiyo Turkiga ciidanka infantryga ugu badan waa iyaga way waxay marka waa niman xagga dagaalka niman adag way Iran waa 90 milyan waa niman ayaguna adag way xagga dagaalka waxa la wixii ama nuclear ama loo baahnaa hub dagaal Ruushku waa geenaya Iran uu soo maray halkaasna uu geenaya waxaad moodaa marka xagga accesska meesha la weerarayo oo Suuriyaana marka laga reebo nuclearka u yaala Ruushka iyo dabcan ciidamo badan oo u joogan laftigiisa oo ka badan kuwa Mareykan ka badan oo u joogan commando Saudi daaradahoodii waxooda waa joogan gantaalahoodii dhan walbaba waxaa moodaa labada dhanba haddana way isku dheeli tiranta oo Turkiga laftigiisa waxaa caqabad ku noqonaysa Cyprus jasiiradda la yiraahdo beesiska militariga oo NATO ugu waaweyn ku yaala sida Turkiga oo kale waxa weey Turkiga waa laga duqeyn karaa Suuriya waa laga duqeyn karaa oo marka laftigoodu Turkiga laftigiisu halkaas dhaawac weyn ba ka soo gaaray jasiiradaas ma taqaana Cyprus iyo Girigo asaguna ma taqaan jasiiradaas ba ay ku taalaba waa asaguna reer galbeedkan raacsan inkastoo tabar lahayn dawladda iska tabar yar ay tahay away marka dagaalka balansigiisu wuxuu ku xirnaan doonaa kow Turkiga laba Hindiya meesha raacdo iyo saddex qolada ku xariifsan siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo militariga qaabka ugu fiican u isticmaasha haddaan dib ugu noqon hadda dagaalkii labaad oo kale dagaalkii labaad xagga technology-ga iyo dhaqaalaha waxa ugu sareeyay ciidankaba waxa ugu sareeyay nimankan dhaho Jarmalka laakiin Jarmalka maxaa ka xumaaday hogaamiyahoodii iyo siyaasadii la tiriyay siyaasadii baa xumaatay oo hadda Jarmalku military waa marka Jarmalku wuxuu dagaalkii labaad looga adkaaday ciidan ahaan meel kasta uu qabsaday laakiin siyaasadii ku khasaaray haddii marka hadda ay reer galbeedku ay siyaasad xariif la cayaaraan qoladan Ruushka iyo China waa laga adkaanaya kooxda reer bariga haddii Ruushka iyo China ay siyaasad qatar ciyaaraan waa laga adkaanaya Mareykan iyo Ingiriis xulfadooda dhaqaalaha ku soo haray qoladii u isticmaasha sida saxda ah labada dhan ayaa guulaysanay waxaan tagaynaa marka ciidanka dhulka iyo ciidanka cirka iyo ciidanka badda waxa weeye ciidanka cirka iyo ciidanka badda waxaan ka dhigaynaa balance inay isla yihiin sababtoo diyaarad cirka wax ka soo tuuraysa iyo marka soo tuuray badda way laakiin ciidankan dhulka oo infantry-ga oo lugta ah waxa ku leh dhinacan Ruushka iyo China sababtoo waxa weeye China kaligeed ba ciidankeeda 2 milyan dhan 2 milyan ciidanka China waa 2 milyan marka Ruushkuna markuu dagaalka bilaabo 22 wadan oo wada hore xukumi jiray iyo bariga dhan oo soo qabsanayo ciidan badan buu helaya marka infantry ahaan
waxaa adkaanahaya oo xagga infantry ku leh dhinacaan bariga laakiin labadii qodob hore soo sheegay oo siyaasadda iyo dhaqaalaha haddii lagaga adkaado infantry badnaanta wax kugu tari mayso laakiin nimankan hadday dhaqaalihii iyo siyaasaddii ku adkaadaan ayagoo infantrygii badnaa wato ruushka iyo chinesku qoladan waa laga adkaanaya waa la xaaqaya laakiin ka soo qaad haddii siyaasaddii 50-50 la noqdo waxaa weeye markaa waa la isla ekaanaya oo qoladan reer galbeedku ay siyaasaddii kor usoo qaadaan dhaqaalihii horey u haystay qoladan infantryga ay badnaayeen weli balance ay noqonaysaa markaa laakiin haddii siyaasadda iyo dhaqaalaha mid ka mida looga guulaysto kasoo qaad waxaa looga guulaystay dhaqaalaha siyaasaddii bisa usoo hartay ruushkii iyo chineska waxay qaateen dhaqaalihii iyo waxay qaateen ciidankii iyo technologygii qoladan waa laga adkaanaya haddii qoladan dhaqaalihii bay hadda haystaan technologygina waa la siman yahay ciidankiina waa laga badan yahay hadday ku darsaan siyaasadda oo marka ay ka xiraan block ay ka saaraan inaan ruushka iyo china xulufayso siyaasadda adduunka kale aysan kaga dheerayn oo ka xulufa bataan oo 203 waddan oo adduunka ay soo raacaan maraykan iyo ay soo raacaan ingiriiska iyo faransiiska iyo xulafadooda ruushka iyo china mataqaanaa hawada laga saaraya ayagana waa la cayrinaya annaga marka soomaaliya xaggee naga soo gelaysaa waxay naga soo gelaysaa waa su-aasha hadda ay weydiiseen anna u soo socday xabaddu hadday bilaabato ciidanka horta ugu badan oo infantryga oo meesha jooga waa 2 ciidan wey marka ruushka iyo maraykan laga tago waa Iran oo gudaha ku jirta ayada meel walba haysata iyo Turkiga oo ku xiga labadaas ruush bay la safan yihiin ruushkiyo qoladan reer galbeedkana ruush baa gudaha ku badan horta gudaha xabaddu markay bilaabayso waxaa ku xoog badan xagga infantryga waxaa ku xoog badan nimankan ruushka iyo xulafadooda iyo Turkiga iyo mataqaana Iran iyo Chinese xabaddu markay bilaabato Iran waxa ugu horeyso ay weeraraysaa Yemen way oo Yemen hadda tanba way haysataa intii badan ida haysata oo xuutiyiinta waxay weeraraysaa Yemen inta u hartay oo Sanco mar haday Sanco qabsatana laba falar ba dagaal ku dhigay laba falar ku dagaalameysa markaas falarta koowaad waxay noqonaysaa oo istiraatiijiga ah inay weerarto Sacuudiga iyo xulafadiisa oo ay qabsato halkaas falarta labaadna waxay soo weeraraysaa Djibouti iyo Soomaaliya iyo Eritrea dekadahaas ay weeraraysaa marka ay dekadaha ay weerarayso Iran maxaa la socda ruushka iyo Turkiga iyo Chinese base buu ku leeyahay Djibouti Maraykan base buu ku leeyahay Djibouti reer galbeedku waa ku leeyihiin ruushka badii fadhiya Soomaaliya fadhiya Soomaaliya marka xabaddu waxay noqonaysaa hadday ka bilaabato Suuriya 100% waxaa qasaba targetka ugu horeeya oo Iran ka labeynayeen inuu yahay inay Yemen dhan qabsato hadday Yemen qabsatana waxa way berberna way duqeynaysaa Djiboutina way duqeynaysaa Asmara iyo Djibouti taqaan ninka la yiraahdo mataqaan Asabna way duqeynaysaa Eritrea Boosaaso barna way duqeynaysaa Chinese iyo Ruushka waxay xirayaan khadka Soomaaliya ilaa Ethiopia ilaa Asmara waxa ilaa Eritrea Djibouti Soomaaliya ilaa laga soo gaaro Kenya intaas Ruushka iyo Chinese inay xirtaan isku dayayaan nimankan ayaguna meesha waa la joogaan halka xabad waa ka bilaabanaysa waa meesha annaga aan ka soo galayna way waa meesha qasadka hadalkan bay u kalifay inaan soo galo way waxaan ku noqonaynaa marka 1907 iyo waxaan isku xiraynaa haddii dagaal ka dhaco Suuriya oo dagaalkan sii socdo Iran ay qabsato mataqaana Yemen haddana ay weerarto ayadii xulafadeedu ay qabsadaan Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea waxa weeye annagu dagaalkii 7 military waa ku guulaysanay laakiin maxaan ku qasarnay siyaasadda hadda marka dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya maxaa laga rabaa waxa laga rabaa in siyaasadda inaan ku guul dareysan ilaa dagaalka anagu hadda meesha awood military kama nihin meeshan waxa isku haysa rabbi adduunka ugu xoog weynaa ugu tun weynaa
bini aadanka waxaa wey marka annaga hadda roolka aan leenahay rool military maahan ama positionka annaga ama meesha aan leenahay military maaha waa siyaasadda wey 7 dodan siyaasadda waa mataqaanaa waa ku khasaarnay waxaan ugu khasaarnana waxaa naloo isticmaalay masar iyo sacuudiga beri 15 weye maxaa lagu kulmaya carabtii yaa go-aaminaya sacuudiga annaga hadda 7 dabadii haddii asaga iyo mataqaanaa masaaridu ay dhaheen inta ay noo soo mareen nimankan reer galbeedku oo weliba maraykan ingiriis noo soo mareen ay yiraahdeen soomaaliya inaan burburinaa rabnay waxaa dhahdaan etoobiya weerar qabsada ayaguna ay u munaafaqadeen maxamed saabari raggii mataqaan la talinayay oy ku yiraahdeen haddaad etoobiya qabsan weydo hadda adoo xoog leh weligaa dhulka kusoo noqon maayo oy munaafaqad iyo been ahayd hadda maanta haddiina la qiyaamo mar labaad haddee macnaheedu waxay noqonaysaa soomaaliya waa dad aan siyaasadda u bislayn macnaha oon siyaasiyiin ahayn oo adduunkan mataqaanaa siduu u ciyaarhaya shaxal ciyaar la qabsan karin baa noqonayna waxay marka dowladda iyo dadka la taliya anooda waxaan ku hadlahaya wixii aan soo akhriyay ama aan mataqaanaa idaacadaha ka dhagaysto ama saraakiisha militariga aan ka soo buusaday waa waxaan ku hadlaya laakiin anu dowladda Soomaaliya xiriirna lama lihi meel waxu marayaanna ma aqaan lamana taliyo shughulna kuma lihi dowladda Soomaaliya iyo jamamada ciidamada Soomaaliya labadaba waxaan kula talinayaa in siyaasadda Soomaaliya xoogga la saaro inaan arrintan lagu fashalmin oo aad looga fiirsado labada quudood haddii xabad bilaabato meesha ugu horeysa oo xudunta oo dagaal ka bilaabanaya waa Suuriya xudunta labaad waa Soomaaliya iyo Yemen wey Soomaaliya iyo Yemen waa isku mid oo cadan iyo mataqaanaa meesha la yiraahdo Soomaaliya waxba iskuma jiraan